أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجائر walaalayaal waxaan rabaa inaan ma aragtay arrimo yar oo ku saabsan siyaasadda Gaaris ku taala inaan ka hadlo ayaan doonayaa marka waxaan ku bilaabay hadalkayga sidan wiigan la soo mooday waxa ma aragtay siyaasooyin badan baa ka socda Gaaris marka sida nooga barateen ba inaan idin falanqeyno oo ma aragtay ka hadalno ayaan muhiim ah marka maanta waxaan ku bilaabayaa aan falanqeynayo siyaasadda ninka walaalkay la yiraahdo Shidiye uu taagan yahay Gaaris uu tagay uu gogladay waxyaalo badan ma aragtay sheegtay marka waxaan rabaa inaan toosh ku ifiyo marka ugu hore waxaan rabaa inaan dhaho Shidiye waa saaxiibkay waan inaan ma aragtay jaamacad isla akhrisanay waan inaan siyaasadda aad iskaga warhayno waxa la yiray hadalka ma aragtay markii shisheeye la dhahayna waa la sugaa markii sokeeye la dhahayna waa ma aragtay waa sirrig baa lagu yaradaraa marka hadalkayga aad baan ma aragtay uga ilaalinayaa inkastoo runta ay tahay ma aragtay in la sheego oo xaqiiqada la sheego ay tahay runtii Shidiye ani asaga waxaan isbaranay ilaa iyo 1992 markii nominatorka laga dhigayay barigaas oo kaan ay nominate gareysay ayadoo oo ma aragtay isla siyaasadii markaas ka dhisneed Lagdera constituency oo nin MP ah oo Ford Kenya ku soo galay oo ka jiray ayaa ma aragtay loo soo magacaabay waqtiyada ka dambeysay oo dhan aad baan ma aragtay iskugu dhaweyn hadda istaagidiisii dadka ugu horeysay uu la tashaday baan ahaa waxaan dhahay niyahu aan ka warsugna bal aan fiirina arrimaha sida yihiin shirarkiisa ugu hore waan tagay midka ugu caansan waxa weeyaan midkii lagu qabtay White Star restaurant Kileleshwa lagu qabtay buu ahaa waan tagay dadka ka hadlan ku jiray heshiiska aan galnay wuxuu ahaa inuu fiiriyo arrimaha sida yihiin hadii ay soconeysana aan garab u noqdo hadii ay soconeynina aan ma aragtay iska dhaafno waxa markii dambe soo baxday oo cadaatay in tolkii ma aragtay uu hal dhinac u jeesaday asagana arintii ay socon weyso wala taliye waxaan ku iranayo iska dhaaf ma aragtay tolkii uu tashaday 100% waxa la isku raacay ninkii nadiif ah in la wado marka asaga oo kaashi ka helaya meel kale to oo marka hore ani asaga baan ma aragtay aan kamid ahayn ayuu hadda siyaasadii raba inuu sii wado marka waxa uu khasbay arrimahan inaan cadeeyo maadaama nin siyaasi aan ahay ummadda ma fiicna in la khaldo waa in runtii beenta la kala cadeeyo weeyaan markuu Gaaris ka soo noqday ayaan telefoon kula hadlay oo niraniyo tolku israacay kala goynin wuxuu yiri hajro beenaalaad marka waxaan rabaa inaan maanta meeshan wax badan ka cadeeyo markaas asagana wuxuu ka dhigay asaga jirta horta Shidiye 2017 nadiif jaamac muu dhisaynin asagoo daliishanayo in nadiif uu garab u ahaa ragii asaga la taagnaa sida hadda Cabdiqaadir Banaane oo kaleeto iyo ma aragtay hire oo islaha markaas uu faan gareenhaya ayuu ma aragtay asagana hoosta ka waday ninka la yiraahdo Axmed Aadan Hire anigana waan isogeyno isku leen baan ahayn calina way isogaayeen markaan soo galnay ani asaga laba nin oo walaalaheen ah ayaa ma aragtay la siiyay chief of SAS Gaaris way garanayaan markii dambana asaga waa la magacaabay oo ma aragtay waxa loo magacaabay ambassador-nima waxaan u magacaabay ninka la yiraahdo Ducaale oo qayb weyn ka qaatay arintaas ayada xaqiiqadeedana waxa weeyaan maalmaha kamid ah ya by election ki abaqayli anako oo rabnay inaan Jubilee ka soo qaadano waraaqaha anako ogeembo ilaa laakiin wax walba in la xaqiijiyo fiican ya waxaan markii meesha aan tagnay waxaan isla soconay niman oo fara badan oo kamid yahay Cabdullaahi Soweto oo kamid yahay ma aragtay ninka la yiraahdo Weere oo kamid yahay Sheexaale oo markii ay taagnaa Ducaale wuxuu yiri nimankii taagnaayeen dhaceen teamkeena ahaayeen kulli meel baan kala geynay Cabdikay waxaan geynay East African Parliament oo halkaas uu MP ka noqday Abbas waxa laga dhigay speaker Shidiye ambassador laga dhigay
marka waxay maaragtay arinta ayada marka horena aan ogeyn in cadeynaysa in ambassadornimada Shiidiye ay ahayd maaragtay waxqabadkii uu soo qabtay iyo sidoo maaragtay 2017 electionka oo uga qayb qaatay waa saan sheegay hadal sariig badan baan ka dhigayaa aad uma sii kululeynay marka meeshaas qiyaas baad ka qaadan kartaa nin walbaba mid labaad hadda sheegay waxa weeyaan siyaasadiisa iyo taagnidiisa waxay dan u tahay oo aad iyo aad u daneenhaya ninkii la yiraahdo Cali Binu maxay maanta tartanka wuxuu ka dhaxeeyaa Nadiif iyo Cali Binu wuxuu ku daneenhaya midda koobaad waxa weeyaan shaqaalaha countiga oo dhan waxa amar lagu siiyay in ay Shiidiye garab u noqdaan oo maaragtay prop u noqdaan oo dhisaan Cali Binu siyaasadiisa tiirar bay leedahay tiirka ugu weyn waxa weeyaan gabadha ilaalada Ceebla oo maaragtay public service board chairleader gabadhaas waxa ay amar ku siisay shaqaalaha iyo ayadaba in hor socotaa in Shiidiye la dhiso waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadweynaha arinta ayada ee qusayso masana danta kale shirkii ugu weynaa Shiidiye uu ka dhigay Lagdheera waxa joogtay Ceebla meeshii ka istaagtay waxay tiray waxaan rabaa Shiidiye in la soo dhiso tiirka labaad haddana meel badan bay wareegaysaa oo arinta ayada ay xoojinaysaa shaqaalaha dawladana ay ku boorinaysaa tiirka labaad ee Cali Binu waxa weeyaan ninka la yiraahdo Bishaar oo speaker-ka ah Bishaar Liboyu tagay waa kii maaragtay ka hadlay arinta Shiidiye oo yiri Shiidiye noo soo doorta meel walbana garab bay isku yihiin dhaartii dhibo masalaani bay iskugu imaadeen nin walbana wuu u sheegayaa marka danta ay kale yihiin waxa weeyaan Shiidiye waxay kale yihiin waxay u arkaan in maaragtay uu galahayo lugaha ninka la yiraahdo Nadiif marka siyaasadda meeshaas uu ka ciyaarayo hadii waa iska garan kartaa meesha ka imaanayso midda kale waxa weeyaan shaqaalaha national government-ka ayaa maaragtay kulli waxa amar uu ku siinhayaa asagoo isticmaalaya xafiisyo kaleeto inay garab u noqdaan buu amar ku siinhayaa midkii Nadiif lagu agarkana in la caqabeenhayo ayaa maaragtay meesha ka muuqata waxa cadeen ah in Cali iyo Nadiif ay is og yihiin Cali wiligi kama hadlo Cali iyo Shiidiye inay is og yihiin waxa cadeenhaya Cali wiligi kama hadlo Shiidiye wali meena maqlin asagoo la Shiidiye ila taagan masana igu ah threat masana waxba kama hadlin ninka uu taageed gareenhayo waxa weeyaan waa Nadiif iyo deeqo oo asagana maaragtay ninka ducaale la yiraahdo oo soo istaajiyo oo garab u yahay marka waad garan kartaa siyaasadda meesha laga ciyaarayo iyo doorka laga ciyaarayo aad garan kartaan Shiidiyana sidoo oo kaleeto ma sheego ninka la yiraahdo Cali focuskiisa iyo maaragtay xoogiisa kulli wuxuu saaraa ninka la yiraahdo Nadiif Jaamac marka waad iska garan kartaa siyaasadda noocaas oo kaleeto ah Ingiriiska wuxuu yiraahdaa if it walks like a duck and crawls like a duck and quacks like a duck and looks like a duck it must be a duck dadka siyaasadda nina si toos u taagan yahay oo ma aragtay mabda iyo ma aragtay nidaam uu ku taagan yahay oo waxa uu rabo tolbu ka raba nina siyaasadiisa oo dhan waxa la yiraahdaa project oo ma aragtay wuxuu u joodaa inuu nin kale lugaha u galo ay u joodaa marka aniga waxa ma aragtay xaq ah in aan runta cadeyno wixii jira aan sheegno sidii u jiraan aan u sheegno maxay yeelay waxaan marka ugu dambeeyo meesha ku noqon doonto waan garanaynaa Shiidiye waxyaabaha uu ku xisaabtamayo waxa kamid ah Nadiif Jaamac waraaqa ma haysto Nadiif Jaamac waa nin soo shaqeeyay mutacallim ah heer masters u gaaray adduunweynaha dhan buu ka soo shaqeeyay hal degree ma dhowr degree buu haystaa aniga kula hadlayaa soo xaqiijiyay arinta ayada wixii hore 2017 iska propaganda ahayd waan ogsoona maxay yeelay dadka ka toobad keenay ee maaragtay tolkana le hanaga cafiyaan arimahaas ayaan ku jiraa marka arinta ayada waxaan leeyahay niyow ninka waraaqihii oo dhan way u saxan yihiin marka bal wax kale oo isticmaali karta bal isku day midda kale wuxuu lahaa cases ba ku socdaan Nadiif oo maaragtay uu leeyahay ethics and anti corruption ba maaragtay case ku wadaa waxyaalo badan buu sheegayaa waxaan rabaa inaan cadeeyo waxa case-kaasito waxba kama jiraana caseski mar hore la soo laabay Kenya waxa weeyaan in iyaba loo xukumo mu ogi case ba ku socdaas waraaq lagaga madaynayo asagana hadda waan ogsoona xafiisyo badan buu tagaa oo fidna u geeyaa oo meel walba kala hadlaa anigu waan u sheegay waxaan ku yiraahdaa arinta kama soconayso
tolka 2017 ma dambi ka gashay hadda dambi ha ka gelin iskaga maaragtay iskaga gaabsa arrintanayto meelo kale ta maaragtay sida aad siyaasadaada uga hagaajisan lahayd falkeeda gal laakiin waxa nasiib darro ah uu ku adkeysan hayaa waxa kale uu ku xisaabtamayo waxa weeyaan inuu leeyahay aniga waxaan ka dhashay laandheerta Cawlihan marka laandheerta Cawlihan weligood nin kale ma dooranin in maaragtay aniga ay doortaan bay ku khasban yihiin horta waxaan leeyahay niyo kursiga la raadinayo ma aha kursi oo MCA masana MP ma aha arinta waxaan maleen waad ku khaldantay kursiga la raadinayo waxa weeyaan kursi gabananimo weeyaan gabananimana dib iska garanaysaa waxa weeyaan waa booday ilaa iyo banaanay tolkana waa halko ciidaha ceebeynin waa laandheerta Cawlihan kulligeen baa ku xisaabtamahaynaa haddana waan ogsoonahay 99% waxay raacsan yihiin nadiif hadal aan horaan ku ireeban hadda ku dhihi niyahow wax kuura ku siin doona malaha ha iska khasaarinin sharaftaada wajigaada iyo maaragtay siyaasadaada qabriga u qodin nin dhalinyaro tahay wali nafaas baad leedahay waxaan oo kale ayaa siyaasadda ka burburin doona marka hadda dawlad baan soo dhisi doonaa insha Allah oo aan ku kalsoonahay state house ilaa iyo meesha ugu dambeeyay aan soo dhisayno baska markaan fiiriyo kuraas badan baa ka banaan marka kuraastaas kale ee banaan mid soo sheego tan gabanaha aad bay kaaga weyn tahay hadii kale oo baska albaabka loo xiro waxaan ku leeyahay niyo si u socoto waxaan maleynay ugu dambeyntii inaad hata maartay jagada oo committee biyaha qaybisay banaanay inaad wayn doonto ballantan waxa weeyaan oo asaga u qaadayo inaan tagi doono banaanay waa tolkii waan garanaynaa qisayaro iga qabsatay baan u sheegi rabaa dhowr hadda laga joogo sanad iyo xoogaa banaanay baan shaqo yar u tagay oo 3 bari oo consultancy labsit aan la sameynay marka meesha tagay war mahaajir ma ahaa shahada English wal idiiday ayako oo ma aragtay fiirin hayaan doorkii aan 2017 iyo go'aankii aan gaaray ayako fiirin hayaan maanta waxaan ku leeyahay arimahan hadda aan ku sheegay kor uma ka marmaray details koodii maartay dhaxgelinta waan ka yara gaabsanaya marka waxaan ku leeyahay meesha ayada ballanteena waxa weeyaan banaanay baan isku tagaynaa insha Allah tolka waa tolkii wax bay fahmayaan ninkii wixiisa uu sax yahay iyo ninkii uu wixiisa khaldan yahay aad iyo aad baa loo kala garanaya marka waxaan ku leeyahay hadalka oo sax ah in la dhaho xadiidka hadda aan sheega ku soo arooray oo ma aragtay afdalul jihadi kalimatul haqqi ما رحت الله شيء سلطان جائر الله شيء ويانا يا ما رحت عند سلطان جائر كمدا marka waxaan ku leeyahay walaalow nin madaxa tahay inaan runta ku sheegno xaq ku jirta arintaada ma saxno iskaga har tolka hal meel u mari waxaan aad ku xisaabtamaysaa leedahay lugta la isku gali iyo dalba kala qaybsamay iyo waxa waxba kama jiraan berdhowto Axmaadan baan wadan aniga adiga waxaan kaloo isku dayeynay inaan ma aragtay bal ninka Cali ahaa hata kuuro boqolnaha ahaade inaan siino waxaan xusuustaa lacag aan la tagay dheertu iyo Cali kunna iyo Boonsiis iyo dhulkaas oo tolkii hoose ay degan yihiin lacagta lagu soo celiyay waxa inuu lacagta nasiiha hadii kale oo aad noo siinayso si walaaltinimo waa ayada laakiin kuuro aan ninka siinayno masaninka kale leedahay Cali hada dooran weysan kana doorta aan ma jirtaana ma jiro marka tolkii waa unkii ayaka ahaa waxa hadda ma aragtay dhigi karta malaha ali Axmaadan ma kala qiimo badneedin waxaan kale ku xusuusinaa niman badan oo siyaasiyiin oo awood badan lahayn markay leenka khaldan ku soo istaagaan uu daad ka qaadaa waxa kamid ah General Bashir oo asagoo ma aragtay TL Alliance kamid ahaa election-kii la soo mooday wax ma aragtay kuuro uu helay ma jirto muxuu ahaa waxa kamid ah Musalia Mudavadi ninka la yiraahdo asagoo vice president oo ka soo gala meesha la yiraahdo Sabatia abiiba ka soo gali jiray intaas oo sano oo 20 sano intaas asaga lagu wareejiyay markuu abiy dhintay intaas oo sano ka soo gali jiray 2002 waan ku xusuusinay kuurihii waxa laga siiyay Moses Akaranga dinyar oo pasta ay laga siiyay asagoo vice president oo cidana magac ku lahaa oo giant aha kaanuba ku xisaabtamaysa marka anigu waxaan arkaaniyahow inaad kuuro meesha si to ka helaynin waxba isdaalinin tolka kala jabinin ha kala goynin ma aragtay uquba lama qaado lama aruursado tolka maanta hal meel ay u joodaa tartankana wuxuu ka dhaxeeyaa Cali Bunow iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa Nadiif Jaamac
waxaan ku dhihi lahaa walaalow iskaga har arrinta iyada meja deeqow waxaa wataa ducaale oo isagoo maaragtay lugaha u gelin rabo ninka la yiraahdo cali bunow laakiin waan garanaynaa kuurahaas isaga meesha u badan doono cali bunow buu u badan doonaa kuuraha marka labada nin ee tartamayso maanta waxaa la yiraahdaa rematch igu celi baa la yiraahdaa mar labaad waa cali bunow iyo ninka la yiraahdo nadiif marka labada nin aan maaragtay aan tartankooda aan isku dayno tan kaleete ee lugahan u gelin ninkan iyo kuuraha kala dhici iyo waxaas waxba kama jiraan magaalada waa la iska warhayaa wax badan oo kala jira dhaarto markaad imaanaysay inta ruuxeed la kulantay iyo inta ruuxeed maaragtay ku siisay muxuu ahaa support waan garanaynaa marka waxaan rabnaa inaan ani kaaga digo hajir ahaan ma rabin meeshan inay gaarto oo hadii aan dadkii u sheego waxa dhacayo laakiin adaa gaarsiisay maxaa yeelay ereyga isku ka dambeeyay wuxuu ahaa jiro beenaalaad walaalo hadaan ana beenaale bal inta shay in hadda ku sheegay soo saar maaragtay waxa runteeda maxaa ceebliya bishaar ay ku support gareynayaan wuxuu cali kaaga la hadlayeen ani iyo adiga walaalaheen maxaa looga dhigay permanent secretaries oo maaragtay chief of SAS CEOs waxa la yiraahdaa waxa soo dhan isku kankeen adi iyo cali xiriir baa idin ka dhaxeeya waana garanaynaa xiriirka idin ka dhaxeeyo cali wuxuu rabaa inaad kuuraha aad u kala gooyso ninka la yiraahdo nadiif taayadana ma dhacayso maxay la tolka meel uu kasto uu joogo aad iyo aad buu maaragtay iskaga warhayaa marka intaasaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.